Waqti badan, dadku waxay ka sheekaysteen magaalooyin badan oo khuraafaad ah. Sahmiyayaal badanna waxay sii wadeen socdaalkoodii ugu halista badnaa ee raadinta magaalooyinka lumay, iyo sidii loo heli lahaa hantida qadiimiga ah ee dhex taalla magaalooyinka. Xaqiiqdii, hawlgalladan mararka qaarkood waa lagu guulaystaa, maxaa yeelay magaalooyinka qaarkood waxaa laga helaa biyaha hoostooda ama hoodka keymaha ee lama-degaanka. Waxaana tusaale u ah Toroi Bombay, Machu Picchu, iyo kuwo kaloo badan. Laakiin inkastoo ay taa jirto, weli waxaa jira magaalooyin badan oo qadiimi ah oo lumay ayna ku guuldareysteen in ay helaan taariikhyahanada adduunka. Taasina micnaheeda maahan inaysan jirin magaalooyinkaas. Mid ka mid ah magaalooyinkaasi khuraafaadka ah waxaa laga helaa Carabta. Waa magaalo qadiimi ah, sidoo kalena duug ah, waxaana loo yaqaanaa Zerzura. Waxaa kale loo yaqaanaa geed biyoodka shimbiraha yaryar. Waxaa loo maleeyaa in ay magaaladan ku taalo meel lama-degaan ah ee galbeedka Niil ee Masar. Iyo sharxaadii ugu horeysay magaaladan waxaa u yimid taariikhyahano Carab ah bilowgii qarnigii 14aad. Tusaale ahaan, buugga loo yaqaano The Hidden Pearl ayaa si sax ah magaaladan u tilmaamay, sidoo kalena wuxuu ka hadlay waxa u qarsoon. Buuggan waxaa ku jira liis ballaaran oo ah meelo ay qasnado qarsoon iyo dahab badan yaalaan. Waxaana la sheegaa in ay magaaladan ay ka buuxaan qasnado dahab ah, laakiin derbi weyn uu ku wareegsan yahay. Sidoo kale, furaha lagu gali lahaana magaaladan shimbir in uu afkiisa ku qaatay. Qofkii raba in uu magaalada galo, sidoo kalena qofkii raba hantida goobta taalo, waa in uu furaha ka qaato afka shimbirka si uu magaalada u soo galo, taajirna u noqdo. Sidoo kale, buuggu wuxuu qoraa ninkii raba in uu taajir noqdo inuu ka digtoonaado jinniyo xunxun oo dhooraya qasnadaha. Sidoo kale, wuxuu xusayaa in ay jiraan ilaaliyayaal madow ah oo adduunka kale oona gashan dhar madow. Wuxuu sheegayaa in qofna qaadan karin dahabkaasi inta meesha la ilaalinayo, marka laga reebo inuu Ilaahay idmo mooye. Raadinta khuraafaadka Zerzura aad ayay u adag tahay. Taariikhyahanka Carbeed ee Taqi al-Diin al-Miqrizi oo sharxay magaaladan ayaa sheegay in mararka qaarkood waqtiga habeenkii ay soo ifbaxayso si lama filaan ah. Wuxuu yidhi, waa suuragal in la galo iyadoo loo marayo ceel ku yaalo lama-degaanka u dhow. Dhanka kale, ceelka waxaa ku jira masas madmadow oo ilaalinaya albaabka. Wuxuuna sheegay in mid ka mid ah dadkii uu masaskii iska indha tiray, albaabkiina fartiisa ku riixay, kadibna galay Zerzura isagoo u arkay janno cagaaran. Waxaa kale oo isna sharaxay juqraafiyahanka Carbeed Cumar bin Musaafar oo loo yaqaano Ibnul Ward, isagoo leh waxaa jira nin kale oo yimid Masar, wuxuuna sheegay in magaalo lama-degaan ah ay ku dhex taalo Masar oo ay ka buuxaan hanti badan. Sidaas daraaddeeda, 2 nin ayaa raacday safar 3 maalin socday. Ugu dambeyntii, magaaladii ayay tageen. Markii ay magaaladii galeen, waxay heleen dahab aad u fara badan. Ugu dambeyntii waa ay soo qaateen. Markii ay soo laabteen, mid ka mid ah ayaa dowladda Masar u sheegay magaaladii, kadibna dad ayay u direen. Laakiin cidna ma soo helin magaaladii oo waxayna ku soo noqdeen niyad-jab. Mid ka mid ah tixraacyadii ugu horeeyay ee reer Yurub ku sameeyeen Zerzura ayay ku heleen magaaladan luntay, laakiin meel cayiman kumaysan sheegin. Ugu dambeyntii, muuqaalkeen maanta halkan ayuu ku egyahay. Muuqaalkan kan xiga ayaa inoo balan ah. Assalaamu calaykum.